horta marka ugu horeysa waxaynu falaqeynaynaa khudbaddii xasan sheekh maxamuud khudbadiisa ilaa hadda lama fahmin meel u socoto. waxaa laga hadlayay arrimaha ku saabsan khaatumo ama SSC baa laga hadlaya dagaalada ka socdo. wuxuu haddana isku qaaday Puntland meesha maxaa keeno meesha wax Puntland la yiraahdo meesha maba olinba. waxaa laga hadlayay dhibaatada ka dhacday iyo dagaalka iyo dhiigii ka dhacay magaalada Laascaanood. marka arrimahan ilaa hadda waa la fahmi la'yahay in ay u socoto khudbadaas. waa arrin ma aragtay aan macquul ahayn. hadba ma aragtay meel buu isku qaadayay. laakiin labada khudbadood midka fiqi iyo midka xasan sheekh maxamuud aniga waxaan si fiican u fahmay midda fiqi, laakiin midda xasan sheekh maxamuud laf timir ayaa ku taagan oo lama fahmi karo hadaladiis meel u socdaan iyo meel ay ka socdaan lama yaqaan. bar labadii khudbadoodba waa kana kii fiqi iyo kii kale dhageyso labadan khudbadood wax farqi u dhaxeeyo wix kamana noogu dhaafo hoos. على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan maalin wanaagsan. saakay waxaan fariintan soo diyaariyay u gudbinayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. waxaan ugu baaqayaa dalka iyo dadkaba sidii loo nabadeyn lahaa, nabad laga shaqeyn lahaa. waxaan rabaa si gaar ah inaan uga tacsiyeeyo dadkii ku dhintay shaqaaqadii dhawaan ka dhacday magaalada Laascaano. dhibaatada magaalada Laascaano ka dhacday waa fogtahay, waa dhibaato culus. in hore badanna waan ka dignay, waana ka hadalnay. haddana inaan rabnaa inaan u tacsiyeeyo marka hore dadkii meesha ku dhintay, qoyskii, dadkii kale odayaasha ahaa dhammaan waxaan leeyahay samir iimaan Allah naga siiyo. inta ku dhaawacantayna muxuu Allah caafiyo. nasiib darro weyn waaye maanta in Soomaaliya meel ka mid ahay weli qoray la soo qaato. arrinta Laascaano iyo Soomaaliya sanaag hadda ka hor dhowr mar aan ka hadlay. مواقفta dowladda federaalka iyo aragtidayda aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda aan wax weyn iskama bedelin oo ahayd mushkiladaas meesha ka taagan. dadka deegaankaas degan ee dhinac walba leh waa dad wiil iyo walaal ah, wiil iyo abti ah. waa dad maxaan ku yiraahdaa inan iyo sodogiis iyo inan seedigiis ah. dad isdhalay, isdhex degay, isla dhashay waay. waxa isku haystaan marka jirnacayb iyo dad nacayb maahana waa siyaasad. horena waxaan u yiri aan u sheegay muddo dhowr sano ka hor ah mushkiladaasi Soomaaliya ka taagan xalkeeda xal siyaasadeed waaye in si siyaasad ah loo xaliyo. siyaasadda guud ee Soomaaliya iyo midnimadeeda lagu raadinayo ayaana xalka muxuu ah Soomaaliya ay ku dhex jiraan. sidaas daraadeed waxa meeshaas ka dhacaya waa ka xunahay, raalli kama ahin in maanta dadka rabitaankiisa qoray lagu xaliyana suurtagal maaha. rabitaanka dadka ha la ixtiraamo, qoryaha ha la dhigo, xabadda ha la joojiyo, هلا وضع هدلو ميسك وضع هذا الكهل السوقي ماذا هلا وضع هدلو. دولة فدرالك الصومالية مدعونا جمهورية دادان أي ديار وحانو هاي مال كستا أو نبض داسي اللوغة هدلايو يعد كستا أو نبض داسي إني كهذا شجع علبة إن أنا قرب تاجنا هاي والسفرة تولد وفوق الديتاي إن أنا تاجن ديار وهاي لكن ولا ليال حلق مرنا كوما إيمانا يقول إن أنا بقولال أما كوما نقف إنتان دلنو kadib korkooda hadhow aan isku gacan salaano oo aan nabadan aan ka dhalinay aan dhahno xabadka isku saarno waa laga rooyaa. balaayada bootin bakayla ayay leedahay hal joojiyo intaan faraha ka bixin. berri inaan xabadka is saarnay inaan hubo in la heshiinayo yaanan meydadkeena iyo xabaalaha dushooda yaanan ku heshiinin. dadku intay nool yihiin aan heshiino hal joojiyo. maamulka cidda sheeganaysa, cidda odayaasha dhaqanka ah, culamaa u diinka, mas-uuliyiinta siyaasiyiinta qof walba doorkeeda nabadeed ha qaadato. colaada Laascaano siima socon karto, lamana aqbali karo. hala joojiyo, miiska wada hadalka la isugu yimaado. dowladda federaalka waxay diyaar u tahay inay fududeyso, ka qayb gasho, kaalmayso. haddii toos dadka hadda ay colaadu dhaxmartay u wada fariistaan arrinta waxa ka socda Laascaano waa aragti siyaasadeedna qoran kuma xalisanto. xalkeeda qoray kuma yimaado kan raba iyo kan diidanbo xalkeeda qoray kuma keeni karaan. hal isu yimaado, hal wada fariisto. mar walba horaan uga shaawna mushkilada ka jirta Sool iyo Sanaag waxay ku dhex jirtaa xayndaabka jirinta aan jirinayna arrinta midnimadana anagu go'aanay naga tahay xoog inaan ku raadino ma doonayno. nabadaan rabnaa inaan ku raadino. dadka rabitaankiisana hala dhowraan leenahay. meeshaasi colaadaasi colaad dadka qabata maaha, dadka Soomaaliyeed ma qabato, dadka deegaanka guud ahaanna ma qabato. hala joojiyaan ku baaqayna mar kale culamaa u diinka
iyo odayaasha dhaqankane ayagaa deegaanadaasoo dhanba nabadooda weligood ka talin jiray nabadda ha ka taliyaan inta qoryaha dadka haysta amarka kuleh ama kuleh maxaan ku raadaay raadka kulane ha la hadlaano ha joojiyaan wiilasha qoryaha laga qaado ha la damiyo colaadda intaas Soomaaliya guud ahaan meel kasta walaalayaal waxaan leenahay colaadi ka jirta ha la joojiyo xumaanta ha la joojiyo nabadda ha lagu baaqo lama aqbali karo dhiig kale oo Soomaaliyeed oo daata wax la aqbali kara ma meel kasta ha joogo sabab kasta ha loo soo waxay hadiina markaas aanan lagu difaacaynin diinta iyo dalka iyo dawladnimada laakiin reer hebel iyo deegaan hebel iyo koox hebel sidee warkeyga u diidi kartaa iyo koox hebel warkeeda ma doonayno muxuu ahaay xalku ma noqdo ha laga yimaadaan leenahay walaalayaal meeshaas waxa kale oo ayada halka rabaa inaan baaq uga jeediyo odayaasha reer Puntland iyo waxgaradka iyo mas'uuliyiinta iyo maamulka dawladda meesha ka jirtaba ayagana waxa uu baaqaynaa nabad walaalayaal warku balaayadu marka ay bilaabanaysa meel khafiif oo sahlan ay ka bilaabata meel fog ay ka bilaabata dalkaas iyo dawladdaas iyo deegaankaas reer Puntland nabad ay weligood haysan jireen nabadii inay haystaan la jecelnahay ayaguna waxaan u baaqaynaa in arinta wada hadal lagu dhameeyo odayaasha dhaqanka ha qaataano kaalinta ay leeyihiin oo kaalinta nabadeed haddana ay qaateen waan ku bogaadinayaa inta odayaasha istaagay ee u istaagay arintaas in nabad lagu soo xalliyo arinta nabad ha lagu xalliyo dawladda federaalka Soomaaliya sidaan hore u sheegay wax kasta oo nabadaas ka qayb qaadanaya laakiin ma saacideyno ma taageereyno raali kama ahin in mushkiladaha na dhex yaala in qoryo aan soo qaadano ku xalino kuma xalli karno nooguma xalismayaan baraan heshiinayna ilaa meelan kala aadayna male xabaaraha korkooda aan ku heshiinin nabadda korkeeda aan ku heshiino deegaanada dhan intaas aan ugu baaqaya meel kasta oo khilaaf siyaasadeed ka jirana wada hadal aan ugu baaqaya waxaan hadda isku haysanaa isma nicbin waa siyaasadana daawadeeda iyo xalkeeda dariiqa kaliya oo ku yimaado waa dariiqa dimuqraadiga ah oo in la wada hadlo ah hal la wada hadlo anagoo dhaqankeena suuban ilaalinayna diinteena ilaalinayna dadkeenana u tureen waxaan halkaan rabaa inaan ka soo jeediyo warmurtiyeed ka soo baxay xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ku saabsan xaaladda magaalada Laascaanood kaasoo u qoran sida tan dawladda Soomaaliya waxay si dhow la socotay shirarkii wada tashi ee ka socday magaalada Laascaanood ee gobolka Sool toddobaadyadii u dambeeyay oo ay hormuudka ka ahaayeen madaxda dhaqanka iyo warmurtiyeedkii ka soo baxay waxayna dawladdu ka xuntahay oo aad uga xuntahay dagaalada halkaasi ka dilaacay ee geysanaya khasaaraha nafeed barakaca ummadeed iyo burburka hantiyeed sidaasi awgeed dawladda Soomaaliya waxay halkan ka cadeynaysaa mowqifkeeda ku aadan xaaladda magaalada Laascaanood number 1 dawladda Soomaaliya waxay aaminsan tahay in dhibaatada ka soo cusboonaatay Laascaanood ay tahay mid siyaasadeed oo u dhaxaysa dad Soomaaliyeed oo walaalo ah deegaan iyo dhaqan wadaag ah dhibka u dhaxeeyana aan lagu xallin karin adeegsiga xoog iyo dagaal toona 2 dawladda Soomaaliya waxay adkeynaysaa in xalka xaaladda Laascaanood ay saldhig u tahay tixgelinta rabitaanka dadka waddo kasta oo kalena ay uga sii darayso 3 dawladda Soomaaliya waxay garowsan tahay in colaadaha iyo dagaalada dhexdooda ah horey loo soo tijaabshay kuwaasoo aan laga dhaxlin wax natiijo ah sidaas awgeed waxay dawladdu ku baaqaysaa in si degdeg ah loo joojiyo colaadda dadka mas'uuliyiinta ah ee labada dhinacna ay hormuud ka noqdaan dejinta iyo wada xaajoodka arrimaha la isku hayo 4 dawladda Soomaaliya waxaa xil ka saaran yahay ilaalinta mabaadi'da dastuuriga ee dhowrista midnimada dhuleed iyo tandadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxayna dawladdu ayadoo ka duulaysa mabda'aas soo dhaweynaysa rabitaanka iyo go'aanada dadka reer Laascaanood 5 dawladda federaalka Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato sidii xasilooni loogu soo dabaali lahaa xaaladda ka taagan magaalada Laascaanood 6 dawladda Soomaaliya waxay dadka Soomaaliyeed iyo hay'adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah ugu baaqaysaa inay gurmad iyo gargaar degdeg ah la gaarsiiyo dadka shacabka ah ee Laascaanood ka soo barakacay ugu dambeyn dawladda Soomaaliya waxay culimada iyo odayaasha dhaqanka ee saman jeclaha ugu baaqaysaa
inay kaalintooda ka qaataan daminta colaadda ka soo cusboonaatay laascaanood iyo xaaladda jirta iyo in xaaladda jirta lagu dhammeeyo is-qancin iyo wada hadal. wabilaahi towfiiq.